أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. موضوع علماء نلو داقي دونا نقضوه موضوع لحير لتربية الأولاد سيدي لو برباريا أوبتك موضوع هنا أنتي إنه ودنا نوضع باهن أما والد شو باهن إن كو وقعنت كو هاي وتربيه أما وقف البابدي هذا تاجن u rashaxan inuu waalid uu noqdo isna uu ka fakari wuxuu ka yeeli lahaa
waxay ahaataba tarbiyadaas waa mawduuc marka ina wada khuseeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku waxa ku yidhi quu anfusakum ahliikum naara idinka horta isbadbaadiya ahladiinana naarta ka badbaadiya ugu horreyn marka waxaan ku khasbanahay inaan anigu badbaado kadib baan waxaan u dhaqaaqayaa qolyaha kale mas-uuliyaddooda aan hay inaan badbaadiyo waan halka nabiga sala allahu calayh wasalam fii kalima jaamica uu leeyahay kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof walbaba qowl baa luqanta loo geliyey oo loo suray qof walbana waa lagala xisaabtami doonaa mas-uuliyadda ilaahi subxaanahu wa tacaala marka uu dhiibay tarbiyadu ahdaaf bay leedahay fi shariica ujeeddadeeda waxaa ka mid ah in ilmahan yar la baro qiyamka waxa yihiin waxa qofka uu ku toosi karo bulshadana toosin kara oo ilmahan yar ee hadda kusoo biiraya bulshadan iyo mujtamacan uu ku cusub yahay inuu noqdo qof markaa booskiisa xajista oo ummadda kusoo kordhiya khayr kusoo kordhiya oo ummadda shartana markaa kala fogaada hadafka kale ee tarbiyada laga leeyahay waxaa ka mid ah inuu ilmahan ilmo farxad ku noolaado inuu noqdo maxaa yeelay waxaa dhici karta haddii mumaarasaadka ama habdhaqanka waalidku u khaldanaado ama islaamku uu ka fogaado inay cuqdad ay ku beerto kadibna cuqdada marka uu la koro inay soo baxdo marka uu gaaro marxaladda ay ku magacaabaan adolescence-ga amaba lagu magacaabo muraahaqa oo marxaladda ugu khatarta badan oo u bixi doono oo ilmaha marka tarbiyadooda asaasiga markay khaldanto waxaa dhici karta inuu cuqdad intuu la koro oo waxaa keeni kara inuu noqdo drug dealer oo waxaa keeni kara inuu noqdo nin isagu ku dagaalama midida oo waxaa keeni kara inuu noqdo nin wadada iska istaagsan 24 sac ee inuu dhiig daadiyo ma wax kale aanan markaa usoo bixin waxaasoo dhan waxay dhahaan psychologian asal ahaan waxay u laabanayaan tarbiyadiisii hore iyo kobiciisii hore iyo sida marka qofka kan wadada loo mariyay ujeedada kale ee laga leeyahay waxa ay tahay in uu noqdo mid isagu ciyaalka kale isaga la filka ah ee asaagiisa ah la tafaacula oo bimacnaa aanu noqonin mid isagu markaa ku sallidan hadday gabar ay tahana sidaas oo kale aanay noqon laakiin uu la wadaago hadafka kale ay sheegeen culimada tarbiya waxaa ka mid ah in uu noqdo qof isagu maskaxdiisuna ay dhisan tahay oo fii nafsi alwaqti social ah social waxaa marka ula jeednaa ama loo tilmaamaya waxay dhahaan culimada tarbiya qofka inuu exorcism kala ma inuu kaliya albaab intuu isku soo xiro oo meel fadhiisama waadna arkaysaan marxalad waxaa jirta markuu 10 iyo meelaha soo gaaro marxalad waxaa jirta uu ilmaha yar iska jecel yihiin dadka inay ka dhex baxaan oo meel gudcur oo mugdi ay galaan laa iskuul laa madrasa laa sheeka intuba aanay jirin maraxishaas oo dhan maxaa looga hortagi karaa waxaa looga hortagi karaa kow tarbiyadaas inay hagaagto bacda tawfiiqi illaahi jalla wacala waxaa kaloo iyadana la rabaa in uu noqdo ilmahan la tarbiyeynayo ilmo mowqifkooda gudan kara oo wuxuu doono sheegan kara wuxuu doono markaa uu cabiri karo wixii waalidka ay ku tarbiyeeyeen ee loo yaqaan talqiinkii amaba ay dhahaan indoctrinationka oo tarbiyada ah ama waxa la dhaho tacwiidka ah in adaptation lagu sameeyo oo wadadii saxda u maro inaan laga bedeli karin oo aanu noqon mid markii madrasa uu tago wixii doona lagu shuban karo laakiin caqiidadii labada waalid ay ka buuxiyeen inay ka soo duxdaan la rabaa ahdaaftaas iyo ahdaaf la mid ah ayaa marka meesha ku jirta waxay tilmaamaan culamaa tarbiya ilaahi subxaana wa tacaala yowma alqiyaama uuna weydiin doonaa yararka kan ee mas-uuliyaddooda ilahi subxana wa tacaala gacanta uu noo geliyey ilahay baa nagala xisaabtami doona mar haddii xisaabtan uu ka dambeeyo waxaa habboon inuu qofku marka aad ugu diyaargaroobo inaha ina la mid ah ayay masaladu ku dul hahaabi doontaa biidn illahi subxaana wa tacaala inta inaan usii daadegin waxaan rabaa inaan microfonka u gudbiyo alafaadil biidn illahi subxaana wa tacaala 3 qodob oo asaasiya baan halka kan ku qaadaa dhigi doonaa qodobka ugu horeeya kow horta intaana ilmaha aanay imanin ka hor ilaahi subxaana wa tacaala ilahu ilma isii lama yiraahdo waxaa la yiraahdaa ilah wax saalixiin ay sii dacwa allaha rabbahuma lain ataytana saalihan lanakunanna min ashaakiriin in ilaahi subxaana wa tacaala la weydiiso ilmo suuban oo saalixiina tii ducadii nabiyullahi ibraahimna sidaa ahayd ambiyaduna saasay ku ducaysan jireen haddaba qodobkaa isaga iyo ahamiyadda uu leeyahay waxaa u bixi doona biidn illahi subxana wa taala fadiilat asheikh alqaari walmuqri sheekh cabdirashiid shacli suufi qodob labaad baa iman doono ah ilmahaas sidii markaa loo gelin lahaa tarbiya toosan mas-uuliyaddooda loola wareegi lahaa isla markaana wax alla wixii ka khaldama loo cilaajin lahaa waxaa u bixi doona fadiilat asheikh mustafa xaaj ismaaciil qodob saddexaad baa jiro ah waxa ugu wanaagsan ee awlaad lagu tarbiyey waa caqiido iyo cibaado iyo camal saalixa waa qodobka uu markaa soo gunaanadi doono fadiilat asheikh maxamed idriis biidn illahi subxaana wa tacaala halkaa waxaa ka soo bixi doona qodobo u baahan
in marka haddana la sii iftiimiyo culimada dib ugu laaban doonaan waxaa ka soo bixi doona as'ile idinku aad qabtaan mawduuc intaasoo noqon doona waxaan marka u daynaya fadiilatu sheekh cabdirashiid shacli suufi waxaan leeyahay atharu ducaa في تربية الأولاد أنت يندلن مركز دشامبا موضوعه بوح فليتفضل فضيلته مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربنا جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله أخواتي وبناتي بارك الله فيكن. horta ilaahay naga abaalmariyo kulligeenba khaasatan idinka ilaahay idinka abaalmariyo maqsuudka iyo ujeedada la isugu imanayo waa inaanan iloobin waxa uu yahay waxa ugu muhiimsan ilaahay nidaam qaybi uu leeyahay jalla jalaaluhu uu noogu talagalay inuu naxariistiisa nagu siiyo wax kasta ilaahay adduunkan sabab uu yeelay asbaabta ilaahay dambi dhaafka uu ku bixiyo adoomadiisa rag iyo dumarba oo ku soo dhaweeyo oo ku jeclaado oo naxariis iyo raxmad iyo uu ku siiyo waxaa ka mid ah kulanka ilaahay dartiisa loo kulmayo ilaahay maxabadiisa loo kulmayo dikrigiisa loo kulmayo in la isxusuusiyo aayaadkiisa iyo sunnada nebigiisa calayhi الصalaatu wassalaam in meesha quraan lagu akhristo in ilaahay subxaanahu watacaala la xusuusto waxaa weyn ee ilaahay laga helayo ayaa horta ka xeel dheer oo ka weyn waxaan fawaa'idda la yidhaha aad faa'iidaysanayso laga yaabaa wax cusub inaadan maqal oo aada horay u haysay axaadiidta ama aayadaha meeshan laga sheegayo laakiin kulanka ilaahay dartii loo kulmayo ayaa khayrkaa lagu helayaa oo naxariistaasi ay ku soo degaysaa kii xadiidkii nabigeena saxiixa ahaa sala allahu calayhi wasalam sideedana mu'minka iyo mu'minaduba camal kaste oo saalixa waxaa wanaagsan inay istixdaaraan fadliga uu leeyahay fadliga iyo wanaagga uu leeyahay markuu istixdaaro oo qalbigiisa gashado ayuu u sahlanaanaya oo u fududaanaya oo dhib kastoo ka soo gaarana wuu u adkaysanaya marka fadliga majaalistani ay leedahay waa inaan had iyo goor aanaan iloobin waa majaalis ilaahay jecel yahay malaa'ig khaasuu ilaahay u soo diraa oo yimaada oo ka qayb gala oo dabadeedna ilaahay oo caliim jalla jalaaluhu oo ka cilmi badan iyaga ayaa haddana lilikraami buu weydiinayaa xageed ka timaadeen addoommo adigu aada leedahay yaa rabbi baanu ka nimid oo ku xusayey oo ku tamjiidinayay oo ku weynaynayey miyay arkeen imay arkin kumay arag hadday arkaan see bay noqon lahaayeen way ka sii badnaan lahaayeen sidan haye maxbay weydiisanayeen haa maxay ku weydiisanayeen jannadaada ilaahay oo ku weydiisanayeen jannadayda may arkeen maya hadday arki lahaayeen waa ka sii badnaan lahayd raqbadooda iyo yacni jacaylka ay jannada u qabaan ay ku weydiisanayaan oo waxay ka cabsanayo iga magangelayeen miyaa jira haa waa maxay naartaada oo naartaada may arkeen maya naartaada may arkin hadday arkaan maxay samayn lahayn waa ay ka sii dari lahaayeen xadiidka macnihiisu sidaa ahaa ilaahay wuxuu ku soo gabagabeeyey waxaan idinka markhaati gelinayaa malaa'igtaydiiye addoommadaydaas inaan u wada dambi dhaafay kulligood malag baa odhanayaa la yidhi waxaa ku jira midaan iyaga ka mid ahayn oo muraad kale iyo dan kale u yimid walahu qad kafartu buu ilahay odhanaya isaga naftirkiisa waa loo dambi dhaafay maxaa yeelay hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum kan iyaga la fadhiista walow yuusan kaba mid noqonine ku hongoobi maayo oo
khayrkaas wax weyn baa ka soo gaaray marka insha Allah horta muraadka ugu weyn aynu leenahay aynu isugu nimid in ilaahay ka wada rajaynayno kulligeen ka ha noqdo marka ugu horeysa marka labaad mawduuca laga hadlay la doonayo mashaayikhdu inay idin tafsiiliyaan anigu aayado quraan markii waxaan jeclaa in dhalinyaradii ay akhriyaan laakiin waxa iska jeclaysteen in aan anigu akhriyo aayadaha marka ii soo hormaray waxa ahaayeen aayado ilaahay uu kula khitaabayay waad maqasheen waa macnaha tafsiirkana waad akhrisataan waad garanaysaan aayado uu ilaahay kula hadlayay toos ula hadlayay haweenkii nabiga calayhi salaatu wassalaam kuwaas haweenka nabiga lagula hadlayayna haweenka muslimaadkana waa lagula hadlayaa waxa ilaahay uu ka bilaabay uu haweenka nabiga uu kala hadlay waxa ahayd adduunyada xaqiir inay xaqiraan oo aakhira ay jeclaadaan inayna adduunyada jacaylkeeda iyo dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda qalbigooda ku weynaanin haddii ay saas xaalkoodu yahayna in aynan u suubanin nabigiisii calayhi salaatu wassalaam khayru khalqillaahi ahaa inay nolol la wadaagaan aayaddu saasay ku bilaabatay yaa ayuha nabiyu waa amar min allahi qul liazwaajika waxaad ku tira in kuntunna turidna alxayaata addunyaa waziinataha fatacaalayna umatickun wa usarixkunna saraaxan jamiila haddaad tihiin kuwa adduunyada iyo quruxdeeda doonaya oo raba kaalayo waan idin furaya waana idin yani mataaca waxaa la yidhaha waxaa la siiyo almar-a marka la furo oo yani lagu kaba jabka soo gaadhay kaana waa idin siinaya si wanaagsanna waa idin sii daynaya macnaha noloshayda agtayda waxba kuma lihidin wain kuntunna hataadiin turidna allaha warasuulahu waddaara alaakhira allah iyo rasuulkiisa iyo daara alaakhira kuwa doonaya haddaad tihiin oo jecelna faina allaha ilaahay acadda lilmuxsinaati kuwiina wanaagsan ee xamalka saalixa la yimid ee muxsinaadka wuxuu u diyaariyey ajran cadiima ajir weyn ilaahay baa yidhi wax weyn hadduu ilahay yidhi waa wax kale wax weyn waa waxaan caqliga bani aadamka geli karin waxaa lagala hadlayay maxay ahayd markii sababu nusuulka laga hadlo aswaaju rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ma ayna ka dalbin nabiga sala allahu alayh wasalam inuu adduunyo badan iyo filal u dhiso ama gurigii hore ay ku jireen ka bedelo ama qolkii fadhiga ka bedelo ama qolkii jiifka ka bedelo ama waxyaalaha hadda aan ku mashquulsannahay raggeena iyo dumarkeena haweenkuba ha usii badnaadeen lagu mashquulsan yahay ma ayna dalbine nafaqada inuu u yor kordhiyo nafaqadu xagee ka kordhinayaa dee meeshaad maqasheen oo ah 2 bilood inaan dab la shidin yaa rasuulallah inta nafaqada noo kordhiy unbaa dalabkoodu ahaa jawaabtiina taasay noqotay in kuntunna kulligood nabigu waa khiyaar geliyey waaxidatan tilwa alukhraa buu khiyaar geliyey ummana caaishuu ka bilaabay kulligood waxay dhaheen allaha warasuulahu wadaara alaakhiraan dooranay halkaasaad marka ka shidaal qaadanaysaa khayr oo dhanna halkaasuu ka imanaya wanaagaaga adiga gurigaaga walaashay muslimadda halkan fadhidaan ka bilaabayaan la hadlaya wanaagaaga gurigaaga uu ka bilaabanayo haddaad guri leedahay haddaadan guri lahayn haddaad gabar yar tahay haddaad xaas la tahay haddaad qof weynaatay aad tahay wanaagaagu wuxuu ka bilaabanayaa xubullah warasuuluh wadaara alaakhira oo ilaahay jeclaato qalbiga aad ka jeclaato ilahay haddaad jeclaatayna waxaa calaamadaheeda ka mid a wuxuu ilaahay nacay ma jeclaanay adduunyada ilahu ilahay necab yaha ma ladiin sheega horta allah ilahay waa necab yaha adduunyada ma jecla allah laa yuxibu dunya isagaa abuuray isagaa dadka ugu nicmeeyey wamaca dalika isagaa xaqiray isagaa sheegay inaysan agtiisa waxba ka ahayn isagaa kitaabkiisa noogu sheegay haddii ilaahay agtiisa ay wax ka tahay inuusan dadka ku kufriyey waxba ka siiyeen kabasho biyaana allah ka dhige isagaa qur-aankiisa nagu yidhi turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira idinku carada addunya baad rabtaan aniguna aakhiraan raba subxaana allah ilahay aakhira waxba kuma intifaaco allah laa tanfachu laa dunya walaa aakhira wala alaakhira nabigiisa sala allahu alayhi wasalam iyo zuhdigiisa iyo saxaabiyaadka iyo ummahaat almu'miniin iyo zuhdigani zuhdi ikhtiyaari buu ahaaye idiraari ma ahayn nebiga hadduu rabo boqor buu noqon lahaa dhulka iyo buuraha waddankiiso dhanna dahab baa looga dhigi lahaa ma uusan doonin leanna wuxuu ogyahay rabbigii koonka lahaa ee adduunyada lahaa inagu marti baan ku nahay oo shalay baan nimid berrina waa ka tegaynaaye kii lahaa inuusan jeclayn ayuu ogaaday
saasaa laga rabaa ayatuha almuslima khayr oo dhanna halkaasuu ka bilaabanaya tarbiyatu alciyaal xubullaahi waxaa markaa waxaa aahaartiisii calaamadihiisa ka mida xubullaahi warasuuluhu inaad dariiqiisii aada qaado inaad ilaahay jeclaato haddee mashaa'ikhdu qaybtii ay igu qaybiyeen hadalkayga yaysan hadhow icanaananin oo odhanin waad ka tagto maadan ka hadline meesha aan ka soo geli karo waxaa weeye ilaahay markaad jeclaato isna wuu ku jeclaan ilaahay hadduu ku jeclaadana waxaa rabta waa helaysaa ay shay doonaysa ilahay ku siinaya waxaa la yidhi berigii hore dadkii hore waa la iska iibsan jiray dad baa la iska iibsan jiray oo gabadh baa mid soo iibsaday markaasuu guriga keensaday oo khaadimada u shaqayso oo yani oo addoontiisii markaa ah yani gabadh saalixaday ahayd oo muuminada markay hawshii iyo shaqadii iyo wuxuu rabay u dhammaysay ayay tihi xaajo kale ma leedahay maya ifasax marka waa hawl baan leeyahay rabbigeed bay hor istaagtay waa ama waa cabda waqafat bayna habeenkii oo dhan ba ilahay hortaagnayd markaasay isagii markuu saq dhexe ay tahay baa kacisay baa layidhi oy tiri yaa sayidii kac oo ilaahay xus habeenka yuuna ku dhaafine hurdadaan isku adkeeyey buu yidhi isagaa sheekaynaya ka bacdi haddana waxay hadal adag igula hadashay buu yidhi waqtiga saxarka oo salaadulfajriga ay soo dhowdahay ayay waxay tihi ayu cabdi suweyn anta yani addoon xun baa tahay habeenkii uu sidan ku tegay adigoon rabbigaa xusin markaasaan kacay oon weysaystay oo waxaan anugu agteeda ku tukanayaan waxaan maqlay buu yidhi iyadoo ku ducaysanaysoo leh allaahumma bixubbika lii fakfir lii ilaahayow waxaan kugu weydiisanayaa oon kugu dhaarinaya oon ku weydiisanayaa xubbiga jacaylka adigu aad ii leedahay jacaylkan ku jeclahay ma aha ilaahu adigu jacaylka aad jeceshahay dartii iigu dembi dhaaf fabixubbika lii fakfir lii su-aal baa meesha ka timid oo waan weydiiyey buu yihi gabadhi waxaan ku idhi adiga inuu ilaahay ku jecel yahay ayaa kuu sheegay ilaahay inuu jecel yahay waxaa ii sheegay bay tidhi inuu xalay oo dhan ii ogolaaday inaan la munaajoodo oon isaga la faqo oon xuso adiga iyo kuwa kula midna uu seexiyey taas aniga daliili uga abay taasaa calaamad ii abay inuu ilaahay hadduusan jeclayn iima ogolaadeen dikrigiisa iima ogolaadeen markaad ilaahay jeclaato oo munaajaadkiisa uu kuu furo oo dikrigiisa uu kuu furo wax alle waxaad doonaysa waa iska helaysaa khayra iyo dunya waa iska helaysaa salaaxa duriyaad helaysaa muraadkaagoo dhan baa ilaahay kuu sahlaya ilaahay waa qaadir allah rabbulcaalamiina wax ciliili agtiisa ka ah ma jiro innaga iyo dacfigeenna iyo yaqiinteenna iyo macrifo la-aanteena iyo calaaqada aan rabbigan la leenahay oo sadxi noqotay oo daciif noqotay unbaa naga hortaagan mooye allahu rabbulcaalamiin qaadir calaa kulli shay xawaa'ijtaadoo dhan ilaahay baa kuu gudaya cid kalood u baahan tahay male ee rabbigan aan baranno dikrigiisa aan ku dadaalno daacadiisana aan ku dadaalno waa sheekh cali oo ag fadhiya waa ximximaya wuxuu leeyahy waqtiga wuu iska dhammaaday meeshaan waqtiga waa la qaybsaday khayrkaasaan isu dardaarmaynaa in shaa allah مسلمات مؤمنات ومحجبات وذاكرات لله عز وجل إناتين ونومقتا إلهي بان كبرينا إنو إذن زياديو سيداس بينو اسكو أغانينا إن شاء الله عرورتنا يعني أنت إلوبيني عرورتنا قفك إلهي عرورسي كي كلنا عرور دوني وله لنا الله سيو إن شاء الله عرورتنا الدعية وإلهي أبريا وح كله وهداية هنوك هذا اللي قاريا مجرو dadaal kaste iyo dhib kaste iyo wax kastoo isku daydo waa sidii la oran jiray hal bacaad lagu lisay waxba ka dheefi maysid haddaadan rabbiga u cuskanin marka ilaahay cusko oo markaad adigu calaaqa fiican ilaahay la yeelato oo daakirad noqoto oo qiyaamu leyl tukato oo bayna yaday ilaahay oydo markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala ilmahaaga uu ku hanuuninayo saalixiin oo quratu acyuninkaaga dhigaya towfiiqda allahna waafajiyo baaraka allah fiikum بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ubadkii caruurtu waxaynu ognahay aabbanimada iyo hooyanimada waa nicma waa hiba min allahi subxaanahu wa tacaala yahabu liman yashaau inaatha
ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إلهي سبحانه وتعالى هو بحي ويان قفك المهواية أيا قرن كرا نعمة لا أنت سيدي دبا نعموينك بنادم كوحو الدريما مركو وايو cunadu markay agtaada taalla qiimo badan ma leh laakiin markaad gaajootaa bay kuu muuqanaysaa cunadu qiimaha ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya inuu ilmuhu hibo yahay inuu nicmo yahay inuu noloshan aynu ku noolahay ziinadeeda yahay almaalu walbanuuna ziinatu alxayaati addunya nolosha dhalaalkeeda inuu yahay in min shahwaati nafs زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وحي إلهي نوت الماما سبحانه وتعالى دتك الصالحين تين كدع عيسانيين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين كوا إيشو كدوك ستين إلهي سبحانه وتعالى وقدقه وحي نوغنا هاي كوبعين تودي بربارين تودنا عبادة إلهي لو قد وادينيت وفكي لبا قبضوت بربارية أما صدح برباري النبي عليه الصلاة والسلام حديث بدن كنت المامية أما سوحوا النبي الشيخي عليه الصلاة والسلام قفك مسلم كاين عمل كيسو قوه مركا ودنتو صدح شيء مو يعني صدقة جارية أو كتغي مساجد هالنقطة البيوت هالنقطة مدرسة ودسة هالنقطة وقفي جارية وكتغي أما علمي لا انتفاع صدى وكتغي علماء المسلمين تهرى الله ونحرسته ما أنت شافعي مذهب كيسا أنت لو عمل فلي وعلم ينتفع به وكتغي صدقوا يه أما سبب النبي كنت المام يا ولد صالح يدعو له المصالحة الموانا يكسنا وكتغي يوسو دعينيا سيدا وهدبا المون نعمو يوانا قويي أيا نعمو ولبا ومسؤوليات إلهينا ويدينا آيات الشيخ آخريي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وانا كي النبي قال عليه الصلاة والسلام حديث كي مسلم كي لي وإن لولدك عليك حقا المها قوينو حق قولي وحنكو سو كوبي يا مركا hantida ugu buuran ee aynu haynaa aynu ka tagi karna waa ilmo saalixa waa ilmo la hagaajiyey inagu ka bulsho ahaan mid si fiican baynu u fahamsanay ilmaha inuu wax uu cuno la siiyo oo uu ilmo xooggan oo naaxsan oo caafimaad qaba noqdo hadduu xanuunsado in la daweeyo oo dhakhtarka la geeyo oo loo dadaalo hadduu yar yahay in la tallaalo oo xanuunada mustaqbalka ee laga cabsanayo laga tallaalo waa feeding curing iyo vaccination taqdiya iyo tatciim iyo cilaaj haddaba waxaan leenahay intaasi jidhkay ku saabsantahe intaas oo nafsiya buu u baahan yahay ilmuhu sida haddii cunno aan fiicnayn loo siiyo uu u bukoonayo ayaa haddii suluukiyaad iyo afkaar iyo dhaqan iyo caqaa'id aan fiicnayn lagu ababiyo uu dhaqankiisu u bukoonaya yani waxa bukoonaya waa maxay waa suluugiisii iyo dhaqankiisii haddii waxa la siiyey ee lagu canqariya aanu wax fiican ahayn ilmuhu sida haddii waynu aragno wax weecadoo muuqda inuu sameeyey aynu nooc min alcilaaj oo ciqaaba u samayno ayuu u baahan yahay inxiraafaadka markuu ku dhaco in la toosiyo oo qalqallooca laga bi'iyo sida uu ugu baahan yahay tatciim qofku marka uu ku nool yahay meel xanuunadu ku badan yihiin مثلا dhakhaatiirta ama neersinka ama waxyaabahaasi meelaha xanuunadu faafa ay degan yihiin jooga marka hore iyagaa la tallaalaa waxaa loo tallaalayaa inaan xanuunkan
ay daweynayaan iyagoo aanay qaadin. dadku marka uu ku nool yahay meel culturally kala gedisan, gaal iyo muslim iyo cid waliba degantay, waa meelo khatara markaa, multicultural, meelo dhaqamo badan laga haysto markuu qofku degan yahay. wuxuu u baahan yahay kow intuu yaryahay in si fiican loo tallaalo oo laga tallaalo xanuunada bulshadu qabto, oo ay maxay ugu horeeyaan xanuunada caqadiga ah. intuu yar yahay in loo laqimo oo la baro oo lagu tadriibiyo caqiide islaamiya saxiixa si uu tallaalu helo. maxay u taraysaa? waxay u taraysaa inxiraafaadka suuqa markuu u baxo inaanay dhibin, inaanay mashkilad ku noqonin sidii kii laga tallaalayay, xanuunka laga tallaalayay. haddiiba ay dhacdo bacd alinxiraafaat inuu ku dhacana in la cilaajiyo. waxaan qadiyadan uga dan leeyahay markaa geedka marka la beero wuxuu u baahan yahay hawl badan oo kale. inta midhaha lagu rido uun biyo laguma shubo lagama tago, ee waxaa la tijaabiyaa in ciidda loo faadhfaadho loo abqaalo. waxaa la tijaabiyaa in minerals ama wax nafaqa la diga iyo waxay doontaba noqotee wuxuu nafaqo ka helo lagu shubo. waxaa la tijaabiyaa in laysku duduwo oo dhirtan magaalada hadiyo goor dhaadheer u aragteen markay yar yihiin baa bir lagu duuduuba si ay qumaat ugu baxaan aanay qalqalloocanin. waxaa la tijaabiyaa in la buufiyo oo xasharaadka iyo waxa kale laga buufiyo. waxaasoo dhan waxa looga dan leeyahay inuu geedkani si fiican u baxo. waxaa la mid ah baynu leenahay ilmaha korintiisu waa saas oo kale. wuxuu u baahan yahay intuu yaryahay in la nafaqeeyo, cunno ahaan, caqli ahaan, dhaqan ahaan. ilmuhu da-duu joogay ku xidhantahy oo marba waxbuu u baahan yihi. culamaai nafs waxay idhaahdaan da' kasta maalan sanad jir ilaa 4 jir waxa ugu badan ee uu u baahan yahay bay yidhahdeen waa xanaan, in kalgacal la tusiyo, dhabta lagu hayo, la jeclaado. waa waxa ugu foosha xun labay yidhahdeen da-daa markuu yahay in loo dhiibo cid ajanabiya, meelahan kindergartenka iyo meelahan carruurta yar la geeyo dumarka shaqo tagaan. waxaa ka qurux badan bay leeyihin qofkaasi xanaanka wuu lumiyaa bay leeyihin. waxa fiican bay yidhahdaan waa more emotional bay yidhahdaan. ilmuhu sanad ilaa 4 jir intuu ka gaadhayo waa emotional. saa daraaddeed taabashadaa la taabanayo, dhabanka loo salaaxayo ama madaxa loo salaaxayo ama la dhunkanayo ama dhabta lagu haynayo ama la soo dhawaynayo ayaa uga naxariis badan waxa kaloo dhan. markuu da-daa soo yaro dhaafo xaddu tamyiiz buu galaa. waa marka talqiinku bilaabmo, in weyse la baro, in caqiide la baro, in waxbaa loo laqimayaa. marka uu soo gaadho 10 jir meelahaasi waa markuu waanada qaadan karo. dhowr iyo 10 jir meelahaasi marka uu soo gaadho wuxuu u baahan yahay waxyaabo wixii hore ka gedisan bay yidhaahdeen. kow alictiraafu bihi, in la ictiraafo. in la ictiraafo maxaynu uga jeednaa? wuxuu jecel yahay istiqlaaliya, inuu dee qof majuura iska dhigo. marka adigu dib ha u celinin oo ku 15 jir iyo ku 16 jir iyo ku 4 jir waxaba haddaad tidhaa carruurtii meeday, markana carruur maaha. wuxuu isku dayayaa inuu mustaqil noqdo. wuxuu u baahan yahay maalan waxyaabo badan inaad ka talageliso laakiin aad tilmaamto. waxaan idhahdaa maalan suuqa intaad tagta 2 maroon intaad soo qaada ha odhan kuwan gasho. laakiin waxaa ka qurux badan bay idhahdeen intaad kaxayso suuqa geyso inaad la taliso. isaga waxaa laga yaabaa miduun inuu iska qaato, inaad taa ceebteeda u sheegto tiraahda taasi ma fiicna, tan baa waxaa ku fiican. inaad qancin karto la taliso si uu u dooran karo waxa wanaagsan. waayo waxaa loo train garaynaya qofkan inuu berri kaa tago. inanta saad guriguunugu hayso in guursado maaha. waa inay iyadoo caqliyan majuur noqotay, wax gadan karta, wax iibsan karta, waa talin karta, waa inay guri kala tagtaa. saa daraaddeed hadday dhowr iyo 10 jir qofku uu soo gaadho waa in majuurnimo loo tababaraa bay yidhaahdaan. markaa qofku inuu mustaqil noqon karo waa in loo tababaraa. in la ictiraafo baahiyiis iyo wixiisa leega waa in loo tababaraa. inuu mas-uuliyad qaado waa loo tababaraa. oo dee ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamaya ama sunnada nebiga calayhi salatu salaam ama diinta dhammaanteed qofku hadduu qaan gaadho amaam allahi inuu mas-uul yahay.
oo aakhiro isaga wax la weydiinayo. laakiin haddaad adigu ula dhaqanto markaa qof qaangaadho ilaahay baa leeyahay waan xisaabinaya, haddaad adigu cadam ilmas-uuliya ula dhaqanto adaa gardaran. da-daa markuu soo gaadho nin iyo gabadhkuu doonayaba ha noqdee waa inuu qof mas-uuliyad qaadi kara noqda, wax lagu aamini karo, wixii loo diro, wixii uu soo qabanayo, wixii shaqo loo dhiibayo, waa inuu qof wax lagu aamini karo u gaadhi karaa. laakiin haddaad ka dhigto wax meel iska fadhiyuuna wax walba loo qabto oo markuu baxayana kabaa loo sii xidhxidho, dharkana inta loo kaaweedayo meel la isugu saaro, adaa xumaynaya qofka. wuxuu u baahan yahay qofkan inuu shaqaysto markuu hadduu da-daa soo gaadho oo uu mas-uuliyadda qaado. waxaan kusoo koobayaa markaa tarbiyadu waxay yidhaahdaan culammadu intay cilmi tahay waxaa ka badan bay yidhahdeen intay fantay. cilmiga inta badan waa nadari, waa meel baa la fadhiistaa, war baa la isku akhriyaa. laakiin intay fantay, fanku waa waxyaabaha tadriibka u baahan. tusaale ahaan gaadhiga wadistiisu intuu cilmi yahay waxaa ka badan intuu fan yahay. matalan haddii inta class lagu geeyo lagu yidhaha gaadhiga sida loo wadaa lagu baraya, oo lagu yidhaahdo furaha lagu shidaa, dabeetana hambareegaa laga saaraa, geerkaa la geliyaa, kaleeshkaa la taabtaa, breegaa la qabtaa, steerinkaa laga wadaa, wakaase kaxe haddii lagu yidhaha ma kaxaynaysa intaa lagu sheego. waa maya, waa theoretical. waa laga yaabaa qoladiina darawalnimada qaadata halkan imtixaan theory-a in laydinka qaado sheegaya qofku inuu fahamsan yahay waxa kan lagu tilmaamayo. laakiin intaa darawal laguma noqdo. darawal waxaa lagu noqdaa marka qofku uu sameeyo tababar badan, saacado badan oo wadisa oo qalada oo dhicisa markuu sameeyo kadib uu darawal noqdaa. waxay dhahdaan tarbiyadu waa fanni u baahan qofku inuu qaato trainingkaasi. waagii hore aynu dhulka muslimka qura joognay ee reerku wada deganaa, ee ayeeyooyinka iyo eedooyinka iyo habaryaruhu guriga joogeen, ee adeera iyo abtiyaal hareerahaaga deganaayeen, waxaad haysatay violating ama dad guidance-ka ku siiyo waaweyn oo kaa weyn. laakiin dhulalkan galbeedka markii la yimi ama afrikada tan ama meel waxaa laga yaabaa inaad guri cidlaa degto eediya habaryar iyo ciditoona kuu dhoweyn. idan waxaad u baahan tahay wax badan oo tababara inaad soo qaadato. marka waxaan leeyahay hablaha iyo wiilasha yaryarna hadday guri kusii socdaan tababar ha la siiyo, ilan goonay u baxayaano meel cidlaabay tegayaane. tarbiyaduna waa waxaa u baahan barashadee ha la isku dayo kutubta laga qoray ee islaamku qoray iyo qur-aanku wuxuu ka sheegay iyo sunnadu waxay ka sheegtay waxaasoo dhan in dib loogu noqdo, cilmiyana loo barto, fanni ahaanna lagu tareyngareeyo. intaas baan tilmaami lahaa. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد موضوع لقاه الله يوحوها تربية أما بربارنتا أولاده وأنا لصو شاقي أولاده إنay tahay nicmo iyo galad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo, hibe ilaahay bixiyo. yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau الذukuur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. marka hibada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey mas-uuliyad ayaa kaa saaran. waa nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey. waxaa la rabaa in laga shukriyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahad celiyo. shukrigaasna ma aha afka keliya, waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala sida qur-aanka kariimka ah uu ku tilmaamay. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu duriyadda ku siiyo inaad noqoto mid ilaahay ugu shukriya oo aad ka dhigto oo ku dadaasho inuu noqdo mid ilaahay subxaanahu wa tacaala u hoggaansan. lain aataytanaa صaalixan lanakuunanna min ashaakiriin. taas weeye qowlka dadka mu'miniinta ah. ilaahayow duriyad saalix ah oo wanaagsan haddaad i siiso waan kaaga shukrinayaa. marka shukrigaas waxaa ugu weyn oo ugu muhiimsan in ilaahay subxaanahu wa tacaala mid u hoggaansan laga dhigo.
mid ilaahay subxaanahu wa tacaala u hoggaansan. ilmahaas yar marka uu dhasho oo caloosha hooyadiisa uu ka soo baxo waa cala alfitra. kullu mawluudin yuuladu cala alfitra. ilmo kastaa wuxuu ku dhashaa fitrada, yacni fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha, oo ah inuu u samaysan yahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudo u hoggaansamo. labada waalid ayaa marka ku toosinaya meeshii uu mari lahaa. fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi. labada waalid ayaa markaa mid muslima ka dhigaya, ama mid yuhuudiya ka dhigaya, ama mid nasraaniya ka dhigaya, ama mid majuusiya oo dabka caabuda ka dhigaya. labada waalid saasuu xadiiska leeyahy. fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi. marka ilmihii fitru ku dhashay waa diyaarsan yahay inuu islaam yahay, inuu ilaahay u hoggaansamo buu u samaysan yahay. labada waalid dowrkooda waxa weeye iyaga ayaa islaamnimadiisaas kusii hayn kara ama ka dhigi kara nasraani gaal ah, ama yahuudi gaal ah, ama majuusi dabka caabuda oo sidoo maaragtay kuwan asnaamta caabuda iyo kuwa dabka caabuda iyo hinduuska iyo waxaas oo kale ka dhigi kara. marka halkaa mas-uuliyad weyn baa saaran waalidiinta. waxa ugu muhiimsan oo ku saaran marka ilaahay subxaanahu wa tacaala yowma alqiyaama waalidka kala xisaabtamayo waxa weeye ilmihii aan ku siiyey ee fitrada islaamka ku samaysnaa, maxaad ka qabatay inuu fitradaas islaamka haysto oo kusii barbaaro oo kusii xoogsado si uu u noqdo mid ilaahay u hoggaansan? maxaad ka qabatay? maxaase aadan ka qaban hadduu leexday oo adigu aada mas-uuliyaddeeda qaadaysa, hadduu gaalnimo xaggeed u leexday? marka arrintu arrin fudud maaha. ilaahayna subxaana wa tacaala yowma alqiyaama waalidiinta waa weydiinaya, labada waalid. aayaddii sheekhu hadda ayuu inoogu bilaabay, quu anfusakum wa ahliikum naar. arrintu arrin fudud maaha. naftiina iyo ehelkiina ka badbaadiya naar. naarna waxaa looga badbaadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala loo hoggaansamo oo waddadiisa la raaco. taas buu leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala naftiina iyo ubadkiina ku badbaadiya. ka waxaa lagu badbaado waa islaamnimo iyo iimaan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala u hoggaansankiisa. taas weeye tan lagu badbaadaa. taasuna ilaahay subxaanahu wa tacaala labada waalid ugu yeeraya. ilmahaas waxaa saaran inay naar ka badbaadiyaan. ilmihii waan ku siiyey, waad weydiisatay, nicmadii waan kuugu nicmeeyey, galladii waan ku siiyey, waan kuu hibeeyey. wuxuu ku samaysan yahay fitrada inuu ilaahay caabudo buu ku samaysan yahay. adiga waxaa lagaa rabaa inaad ku barbaariso, ood ku waddo, ood ku koriso, kana ilaaliso waddadii xumayd ee yahuudinimada iyo nasraaninimada iyo majuusinimada aada ka ilaaliso. qodobkaas horta waa inaan isla fahmnaa. hooyada iyo aabbuhu iyagaa mas-uul ka ah inay ku ilaaliyaan islaamka iyo caqiidadiisa, inay ka ilaaliyaan wax allaale iyo wixii u hoggaamin kara ama u horseedi kara gaalnimo iyo waddadeeda. kow. labo, sidee markaa waalidku ugu ilaalin karaa inuuyan ilmahaasu ka leexan waddada? waxaa saaran jawaabtu waxa weeye waxaa saaran intii awooddiisa ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala sideedaba bani aadamka dhammaan waajibaadka uu ku waajibiyo waa inta awooddiisa ah inuu dadaalo baa laga rabaa.
laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha laakiin inta tabartiisa ah waa inuu ku dadaalo inuu caqiidadaa ku hayo saddex arrin weeye waxa aan ka hadlaynaa oo sheekhu dhinaca uu igu soo leexiyey oo ah dhankii yacni quudkiisii iyo hoygiisii iyo hugiisii iyo waxaas haddii laga hadlay waajib way tahay waalidkuna badanaaba waa arrin muuqata oo aan dardaaran badan u baahnayn meesha dardaaranka culus u baahan waxa weeye caqiidadiisa iyo cibaadadiisa iyo akhlaaqdiisa saddexdaas oo diintu ay ka kooban tahay diintu waa caqiido ilaahay rumayntiisa iyo iimaanka waa cibaado salaadii soonkii zakadii ma dikrigii ilaahay qur-aanka akhrintiisii cibaadooyin lagu cibaadaysto iyo akhlaaqdii islaamka waa hadalka wanaagsan ka fogaanshaha anshaxa xun cayda xumaanta namiimada laasimidda sabirka dulqaadka ixsaanka ka fogaanshaha xiqdiga xasadka yani xataa walaalihiis iyo guriga iyo bay-adeeda marka saddexdaa qodob waxaana koobaya aayaadka aan ku arki karno aayado badan iyadoo ka shekeynayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay nabigiisa alayh slat slaam wa'mur ahlaka bالصalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narzuquk waalcaaqibatu litaqwa hadda aayadda u fiirsada arrinta wixii cuni lahaa cabbi lahaa reerka oo hamiga mararka qaarkood qofku ku andacoodo inay ka mashquulinayso yaa cibaadadii salaadii akhlaaqdii yaa caqiidadii ilmaha maxaana de koobkii u cabbi lahaa baan raadinayaa kibistii uu cuni lahaa baan ku mashquulsanahay salaadiisa waxba kama ogi soonkiisa waxba kama ogi cibaadadiisa qur-aankiisa waxba kama ogi maqbuul maaha ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahy laa nas'aluka risqa naxnu narsuquk ha ku andacoonna hadhow risq baan kaga mashquulsanahay risq waa kuu damaano qaaday laakiin waxaa la rabaa inaad farto oo ku sabirto oo ku joogtayso oo ku kontaroosho salaada oo ah umulcibaadaat cibaado oo dhan asalkeeda subaxdii ma tukaday ma soo kacay duhurkii ma tukaday xaggee ku tukaday casarkii ma tukaday ilmahaas wastabir caleyha taas wey joogtayn wey ma tukatay duhurkii ma tukatay casarkii ma tukatay maqribkii ma tukatay adkaartii ma akrisatay sunnadii ma tukatay ya ceshihii ma tukatay joogtayntu waa taas walidaalika aayaddaas markay soo degtay culimmada waxay leeyihin nabiga calayh isalatu asalaam subax walba fajar ka hor u dhaqaaqi guriga faadimo gabadhiis ya radia allahu canha iyo cali ibn abi aalib oo ninkeeda ahaa uu ku qaylin asalaa 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 buu leeyay waa nabiga calayh isalatu asalaam maxaa dhahay ilaahay baa wuxuu leey wa'mur ahlaka bisalaati ehelkiisii weeye gabadhiisa iyo ninkeeda iyo carruurtooda cumar ibn khadaab radia allahu canhu sidaasoo kalaalka sheegay guriga habeenkii markuu salaatuleilka u kaco ayuu kicin jiray dadka oo ahelkiisa xaaskiisa almiy asalaa 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 buu dhihi jiray salaadii 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 welwel bay ku haysay amar bay ku haysay saasaa la rabaa waalidka lidalika ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga sheekeynayaa ninkii saalixa ee wanaagsanaa ee luqmaan inuu leeyahay yaa bunaya aqimi الصalaata wa'mur bilmacruufi wanha can اlmunkar واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وعور يا شيء وحوي صلاة أقم الصلاة يا بني سي قروح بدن أنا حريص لبوق شيء كورنا وحوس وشيء عقيدة يا إيمانك إلهي سبحانه وتعالى رمي وح وجه الرأي وجه مهم سن أي تال جرب عقيدة دي سين يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم شركي كفري بوجدي كذبنا عبادتي بفريا كذبنا أخلاق دي بفريا ولا تصعر خدك للناس
ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك حتى سوى هذا الهاب والشقية ما بريع عد كنا قيلضي بدن إيو إنك هذا مرر بدن قريقي ماشي صومالي سوق شو عليه قيلهم بكي يريس يجي عرور توضو يا إلهي سبحانه وتعالى واغضض من صوتك يا مركا هو يدي يا أبيه لفتك وضع الرواء إني إلمها قدوة أقول نقضان عدك إن هو صلوديو هذا إسقي لا هذا عدك هو صلوديك أذي عدك سيدو قاضي أو قيلين ما أنتظر وريري يا وهبار يدعو يسكت داري يا iyo kooban kaaga siin iyo waan ku dili iyo suun baan ku qaaday iyo ulba kaaga goyn mindi baan ku qaadan oo kala jari arabkan ka jari dhigtan ka jari maanta dhan hadaa tira iyo qaylo iyo buuq tarbiyada nooceeda ma aha si qabow buu ugu sheegayaa wiilkiisii markuu soo koray waxa weeye marka saddexdaas arrimoodba waa arrimaha la rabo in xoogga la saaro caqiidadiisa qaylo iyo dil iyo garaac kaligeedna ma aha oo dadka qaarkood ay maaragtay marar badan ku hodbaan u maleeyaan in ilmaha toosinayso wax badan ma toosiso qaylada badan iyo garaaca badan asxaabtii iyo nabiga calayhi salaam guriyihiisa carruur baa ku noolaan jirtay carruurna wuu lahaa nabiga calayhi salaam cumar ibn abi salama oo ahaa wiil nabiga calayhi salaam salama ayuu qabay oo xaasaska hooyooyin ka mid ahayd radia allahu canha wiilkaas ay dhashayna agoon buu ahaa nabiga calayhi salaam isagaa soo koriyey abu salam aanu dhalay markii cuntada wuxuu isaga ka sheekeynaya wuxuu leeyahay wiil yar buu ahaa kuraya markii xeerada lasoo dhigo haddee waa ilmo yaroo yaa koosaarta meesha ay saaran tahay hilibka yaroo xagga saaran iyo maraqa xagga saaran iyo ma gacantiisu saasuu dhihi oo xaggu ka dafiyo xaggu ka qaadan yaa markaa nebigu calayhi salaam si qabow buu yiri gacanta kuma dhifano dharbaaxa kale ma daalna koo waxaan arkay ilmo yaroo saasoo kale gacantiisu meel aaday markaasuu kaga soo gooyey labada indhood taas wax ma tarbiyayso waxna ma barto markaa nebigu calayhi salaam wuxuu ku yidhi yaa ghulaam wiilyo sami ghulaamka wiilka yar baa la yidhahdaa kuliga 7 jir 8 jir 10 jir 11 jir weli aan qaadan yaa ghulaam sami illaah maandhow bismi illaahi dheh wakul mima yaliik yaa meesha kugu xigtana ka cun لا وحوليه عمر ابن أبي سلمة لحدا تضباطا نين وين مركو النقضي إلا مالين كاس النبي عليه الصلاة والسلام يا او إبرايس ده وحلو عنه سيدي أمبانو عنه يا سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك من هذا غاربة بيدح لسكوا عنايو والدكو حلقة يابا إنانو كو براروين مرر بدن وارين فضود بو يسكل ليها كو ما براروي المي كوب كبيها بعضو صديق يسامع عنها بيدح لكو عبايا وأنا مركي وشكتها كل بيمينك ميدك تكو عب ما عنده ميدك تكو عب يا ميدك تكو عب هفضو ديسان عايزين هذا وقف وين وين هذا وين ما سوى وين بدرك يسان وين ومارت بيدح تكو عبايا يا بيدح تكو عبايا هذا عي كعنتي سنة وما بران لبنا برين مركو يا رابن لقوا أبابين مركة تربية دي أخلاق دي نساس وحجي عقيدة دي نوجه الرئيسي وحن ربا هدي وسايشنا تاكت المامي خطأ الرمب بدن أو خطر والدين تنا أنا كبر روجين مرر بدن جارهان هو يوين كولي إن ندين المامي ولا ليه المهاس إن أديو عقيدة دا كتر بيسو oo ku ababiso oo diintii barto oo quraankii barto horta ihsaanka ugu weyn baad u samaysay khayrka ugu weyn waad siisay laakiin waalidiinta qaarkood waxay u maleeyaan cilmiga maadiga ah kaliya xoog saaridiisa inay tahay midda uu wanaag ugu samayn karo kaliya oo ihsaan ilmaha ugu fali karo soo mustaqbalka u shaqaysto buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بل خير كي حاجه لو شيغي marka diinta Soomaa barashadeedii baa khayrkii nabiga calayhi salaam ku sheegaya
كو مر لباد حديث كله خيركم من تعلم القرآن وعلمه وإن كو خير بدن وحوي كان قرآن كبرته أو بره مده كريم مياه عليه الصلاة والسلام خيركم يا من تعلم الطب وعلمه مده كريم مياه هذه كريم من تعلم الهندسة وعلمه ما مده كريم مياه من تعلم قيادة الطائرة نوشا وحيالا بدنو وديفوينه sababtu waxay tahay sida sheekhu haday idin yiri adduunyada horta waa marxalo gaaban labo risiqeedu waa la kafaalo qaado saddex bani aadamka isagaanba in loo tilmaamo u baahnay inuu sidoo ku shaqaysan lahaa kulli uu shaqaysan laakiin aakhirada iyo mustaqbalkii weynaa wuxuu ku badbaadi lahaa taasa muhiim in loo sheego tan waa sanado waa wax kooban waa xayaat caajila man kana yuriidu alcaajilata ajalna lahu fiha ma nashaa لمن نريد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ورا مشكور لما دين دوي وسكي ما نساوي إلى هاي كوقرة يوادي ليس مركا النبي عليه السلام خيرك هلقا سوكو شاق إنك خيرك إنتان لبدي بإلونو مالك الآن خير كرادينو مصعونيس شاء عليه وحباها يصوفيرين العلماء أنا قاتل وقت قوتي شيخ واحد يوسف رياوي شيخ مصطفى إيوه شيخ عبد الرشيد سوسة اسمها شنو مركا وحان الله ولا ليا مثلا هذا المها وحضرك يسا واحد بدنا اسكولا أجنبي اسكول كقالسين يهاي بعدتك ولادين تلا عليها لولك عربها واجرتها مسلمين تغارك واجرتها اسكولا قالوا فرتيو اسكول كي مسلم كاها أما كي دوكسي كاها ولا قالوا أردايا مدرسة ugu hooseysa oo islaamka baa ka fiican madrasada ugu qaalisan ya oo gaalnimada ilmahaas hadii uu meesha fikir gaalnimo ka qaata iyo aqoon gaalnimana waalidka loo soo istaago hooyada iyo aabaha loo soo istaajido wallahi alladhi la ilaha ghayru intaad lacag ku bixisay gaalnimo cunugaaga ama fikirkiisa la kharibo baa lagu soo istaajin yawm alqiyaama aad loo digtoonaado قليشوا يبرنا اختاروا النقنا كانوا النقنا لا قرآن ولا عقيدة ولا أخلاق ولا فقه نقدم كي هي والله الذي لا إله غيره خطر بينه مركب كجرنا يوم القيامة إن الناس حساب بل إسكت إلهي سبحانه وتعالى ولا حساب تمام إستجا لفتي المهز يوم القيامة مركب رنت أركو أنه قرت نقول دقيقة والدك هو يا أبو هلك كل دقيقة إذا كان مسؤول هاي محاد يقول جيسين معلن قال هم مسكحي إذا قال نمكشوا محاد يقول جين ويدين كتابك إلهي سبحانه وتعالى إنام برضو كاسا إلهي إذن فرعي يوم القيامة حجة هاي ستاها هدات قرآن كي كتابك إلهي أحد إلهي أنا واجب كي وكسر علمك لو مادية هتقدر سكر ولا مادية أنا ما هنا نديده علمك مادية لكن ولا ريال وين كهر ريسا قرآنك وين كهر ريا عقيدة دي وين كهر ريسا دينتي وين كهر ريسا تربية دي وين كهر ريسا هذا واحد نصب بحي ربنا اسكوله قالية دجناية ما مرتي بهالك دجناية ما تيجي دجناية لكن قرآن دمكة دين دمكة فقه دمكة تربية إسلامية دمكة قبل هو وين هذا أو دجناية دمكة بين نصب بحي وأنا هو يض يا أبا ولا هو يض ولي بين كتر ترتيس صوت هذا ما يا سكول كاك قال لسان كاسة لقيه كاسة قال لسان كاسة جينين لعقت انت كبدن بان كبخينينا marka tarbiyadaas waa lagu hoogayaa yawm alqiyaamana saalix ka soo bixima adiguna ku khasaaraysaa qiyaamaha iyo kii ku ducayn lahaa saalix ahana wad ku weyday halaga digtoonaadan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqda ana waafajiyo jazaakum allahu khayran barakallahu fiik jazallahu sheekh Maxamed Idris isagoo waqtigiisii intii loo soo hambeeyaba isku darsaday mawduuca halkii la rabay buu ka abaaray jazaakallahu khayran waxaan rabaa in aan soo khulaaseeyo inta ay culimadu ay yiraahdeen iyo gunaanad yar oo quraanku xambaarsan yahay inaan tilmaamo waxaanu ognahay marka tarbiyada laga hadlayo muslim iyo gaalaba waxa xoog la saaraa wax lagu magacaabo parenting system oo ah sidii
waalidnimada loola wareegi lahaa ama xiriir ka dhaxayn kara waalidka iyo ilmaha ay dhaleen saad ogtihiin calaaqada waa calaaqa loo baahan yahay inaad adigu keensatid waa inuu gaaro ilmaha heer uu kugu kalsoonaan karo wiilku uu ku yidhaahda maalan waxaasaan damacsanahay gabadha ay ku tiraahdo nin baan is arkoonnay in heerka adigu aad gaarsiin adaa samayn kara walidaalika arag markii ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati yuusuf uu yidhi marka yaa abati innii ra'aytu 11 kawkaban waashamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin inuu ilmo yar waxa uu ku riyooday oo aabbihii la hor tago waxaad meesha kaaga muuqan kartaa haddii riyada uu sheegay wixii riyalka ah ee muuqdan inuusan ka qarin jirin adaa lagaa rabaa marka inaad gaarsiisay heer wuxuu ku riyooday iyo wuxuu soo arkay inuu kuu keeni karo qodobka labaad ee laynooga baahan waxay tahay in ilmahaaga aad u digtid waa dhahday warkaa drugs buu isticmaalaa war familiga ma fiicna war dadkaas ma tukadaan war dadka xiriirka la leedahay ma fiicna war duruus ha dayicin arag nabi ilaahi yacquub laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatik fayakiiduu laka kaydan ina shayطaana liinsaani caduwu mubiin halkaa wuxuu leeyahay nebi yuusuf markuu arkay riyadii cidna ha isaga sheegin maxaa yeelay dadku cadow bay kugu yihiin waxaa lagaga baahanya marka xiriirka aad ilmaha la leedahay in uu ku jiro inaad u digi karto dhihi kar waxaan way khaldan yihin waxaan way saxsan yihin waxaa kaloo lagaga baahan yahay oo kale inaad mustaqbalkooda ka shaqaysid وأد كهت وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل يعني أرق مستقبل بكهله إلهي باكو دوران دونا والله ديارنا يا إيادنا إنا تهديد وحبرا كل يدا قل شريعة برا قرآن هذا حفظ دختر النقاء وحدا يقول شيء لهي إن المستقبل كيسا كلا هذا شيء وحكمت وحيابا قرآن كنا برا أضاس إيدا إسيا تاي هدنا كوا أضا شيء وبدين عدالة بلغ جبا إن هذا دهن كليه كم بعد مودا إنه دجال نقول لها إسقان ربا إنه دختر إنه نقضه كنا واحد ربا إنه ماشي جي ماها عقوش صار ولا ما رقمه ولذلك نبكى كأي من كروحها كمدة ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين يحديث نعمان بن بشير بإيمان يوله والنبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري عدالة ومهم عدالة ومهم مرك عيالك يبوي وحبي استوسينا يذا النبي الله يعقوب شقاء وكلها لكن يجا إسكاد عديوي محير والموضع ده شيء waxaa kaloo lagaga baahan yahay oo kale maanta dhan aad adeyga tirada badan maaha oo aad dahdid waliyaalika ma qurux badna inaan dhahno subaxiina malcaamad iyo dugsiga qur-aanka joog ama subaxii iskuulka tag galabtiina qur-aanka tag habeenkii inta soo celi ma fariisanaysid ma ciyaaraysid waxaa lagaga baahan yahay waqtigii inaad ku kala qoondaysid marna ciyaar marna asxaabtiisa hala fariisto mar maxaa yeelay qur-aanka wuxuu naga arsilhu macana gadan yartac wayalcab qur-aanka inuu sheegay waxaa la muujinayaa ilmahan yar nafsiyaadkiisa yani inuu ciyaari karo walidaalika kelimata ragca laftirkeeda macnaha unbay soo gelaysaa waxaa kaloo laynooga baahan iyada inta marka la sheega haddana qaybtan waa qaybtii relationka ahayd qayb waxaa jirta directing ah oo aad ku khasban tahay inaad adeeg muujisid wey waa goorma markii nebi ilaahay amaba luqmaan alxakiim yaa bunaya laa tushrik billahi ina shirka la dulmun cadiim taa iyadoo gorgortan ma gasho shirkiga iska ilaali ilaah diidka iska ilaali kufriga iska ilaali diinta khaldan iska ilaali iyadoo ma gasho waxaa wanaagsanaa lahayd inaad dhahdi markay taagan tahay salaada markay taagan tahana iyadana waa kan waamur ahlaka bisalaati iyadoo gorgortan ma gasho mas'alada la xiriirta muraaqabatullah oo ah qofka in aad ku beertid wacyi ama aad ku program garaysid programma inuu ilaahay dhowrayo ilaahay ula socdo halkaasaad gashay ilaahay baa kuu jeeda waxaan baas ilaahay baa kuu jeeda adiga ha isku xirin ilaahay ku xir maxaa yeelay kullamaa makhluuqan khaaliqa lagu xiro kullamaa natiijadu ay wadarteedu aad u qurux badnaanayso laakiin haddaad isku xirtay waan kuu jeedaa waa liii soo sheegaya khabarkaaga macno male laakiin ilaah baa kuu jeeda dheh waxaa kaloo inooga baahan yahay iyadana in la baro sabarka in la baro noloshu way aad bay u adag tahay waxbaa ku iman karaa dhibaataa ka hor iman karta inuu barto waxbarashada markiiba inuusan ka dhicin qur-aanka markuu ku adkaaday inuusan dhihin lamama baran kara waxaan tiradu ka batay noocan ma inaad adigu aad bartid maxaa yeelay wastabirtaas waa tan qur-aanka uu tilmaamay waxaa kaloo inooga baahan yahay haddana inaad ugaga digtid inuusan isla weynaan oo dadka uu la dhaqmi karo maxaa yeele badan isla weynay markuu yimaado kan buu la dagaalamayaa kan buu diidayaa kan baa la kala qabanayaa walidaalika uu digay nebiyullaahi markii uu hadlayay luqmaan alxakiim waxaa ka mid ahaa ma aragtay walaa tusacir khadaka linnaas dhabanka dadka ha u jeedin adoo kibir iyo noocan ma uu kugu jiro qabweynan iyo faajeertan uu kugu jiro waxaa ha samaynin waxaa kaloo laga baahan inaad bartid haddana in waxay dhahaan
inuu muqtasid noqdo shilinka markuu bixinayo dharka uu xiranayo cuntada uu cunayo maxaa yeelay waqsid fii mashig waxay leeyihiin mashiga keliya waxaa lama cabirina waxaa la rabaa qofka socodkiisa wuxuu ka turjumaa noloshiisa intiisa kale psychologiyan intaa markaan soo duuduubo oo ah iyo kelimadii culimmada ay sheegeen halkan waxaan kaga baxaynaa waxa loo yaqaan tarbiyada muhiimka walidaalika alanbiyaa marka dib lagu laabto inta ay xayi ay yihiin wakaana ya'muru ahlahu bisalaati way amar bay la iman jireen markay isleeyihiin adduunyada waa ka tegi doontaan halka innaga aan ku mashquulayno ee xoolaha hebel ha la siiyo qur-aanka waa tanuu tilmaamay am kuntum shuhadaa id xadara yacquuba almowt id qaala libanihi maa tacbuduuna min bacdi intaasuu ka walwalaya war waan dhiman doonaa haddaan socdaay xeraarg baan ahay maxaad caabudi doontaan wuxuu confirmation ku sameynaya caqiidadii saxda ahayd markii yidhaha nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ik markaas dabcan marka uu godka u hooyanayo isagoo mudma'ina albaalu intaa kadib waxaa hor yaal intaasoo su-aalo waqtigan uu kooban yahay horta intaasoo waraaqo waa duco insha allah sheekh cabdirashiid baa noo ducayn doona biidn illahi subxaana wa tacaala su-aalahan waxay isugu jiraan qaar english ku qoran iyo qaar af soomaali ku qoran iyo qaar isku soo lalaabtay laakiin culimmada wixii ay ka gaaraan sheekh mustafa aawe ayaan weydiin doonaa biidn illahi subxaana wa tacaala laba su-aal oo soo lalaabata ayaa jirta oo ah raggu inay meherka inay diidaan oo aanay bixin waa xuquuq la isku leeyahay soo ma mawduuca sheekh maxamed idriis baan u dayn doonaa laakiin horta in lagu baraarugo weeye kow adiga horta meherka aad dalbaysid uusan noqon meher aad u tiro badan laga bixi karin laakiin waxaan leenahay maxaa loo diidaa sababta loo diida xuquuqda maxay tahay balse maxamed in yar noo iftiina baaraka allah ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay qur-aanka kariimka ah waaatu nisaa saduqaatihina nixla yacni haweenka meherkooda ama sadaaqooda siiya waa waajib ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey oo aad ku xalaalaysanayso marka sidaa asalkaa waxa weeye in la siiyo gabadha meherkeeda marka la guursanayo ama la mehersanayo ama la nikaaxsanayo dadka muslimiinta ah marka dhaqamadooda waa kala duwan yihiin meelaha qaarkood amarkaas sidiisay u fuliyaano nikaaxaba sheekhu ma rido ilaa uu arko meherkii lacagtii lagu heshiiyey ama meherkii lagu heshiiyey oo meesha meherka la keenayo lasoo dhigo waa in lasoo dhigaa iyadoo diyaara markuu gabadha iyo weligeeda ku wareejiyo ayuu nikaaxa ridaa way dhacdaa taas meelaha carabta qaarkeed way ka jirtaa dadka cajamta ah qaarkood way ka jirtaa waxaan arkay anigu qaar masalan sacuudiga oo kaleeto ninka ma'duunka la yidhaahdo ama meherinayo wuxuu oranayaa meher misaa lagu heshiiyey intaasaa lagu heshiiyey meherka diyaar ma yahay lacagta haa ninkii gabadha doonaya waa inuu lacagta soo bixiyaayo soo diyaariyaa haddii kaleeto nikaaxii ma ridayo ma'duunka wuxuu oranaya lacagti ken waxaan kaloo arkay meelaha kale qaarkood sida Malaysia oo kaleeto oo iyana cajaba meherkii meesha la soo dhigaya waliba lacagtii oo tirsan Soomaalida dhaqankeedu waa ka duwan yahay sheekh bal meheri way maxaa la magacaabaya waa la magacaabaya odagii uu dhimanayaa caruurtiisina way dhimanayaan qaarkood isagoo wali meherkii islaantu qaadan iyadina way dhimanaysaa ka daba tegaysaa markaas su'aashu ku imanaysaa aabahay wuu dhintayo hooyaday meherkeedii ma uyan siinin 60 sano 70 sano ka hor wax dhacay Soomaalida kuwa la isu diidaana waa jira marka ala kulli xaal arrinku waxa way kow horta meherku waa shay waajiba gabadhaana xaq oo la iska leh reerku ma laha yani odagu ma laha abartu ma laha iyada lagu xalaaleystay oo iska leh xaq u leh in farta laga saaro way kaas waa qodobka labaadna waxa weeye sida wanaagsani waa in la siiyo gabadha meherkeeda laakiin way bannaan tahay in qaybna loo hormariyo qaybna loo dibdhigo waxa weeye baas kuma jiro haddii ku heshiiyaan midda labaad waxa weeye qofku haddii ay ka tahay meherka la magacaabayo ninka hadday ka tahay khiyaano inuu ku banaysto laakiin uu leeyahay iskaga meheri waxay doontaa noqotay 100 geela 200 geela xataa shay 20 kun 50 kun bay sheegatay iskaga meheri kollay bixin maayo duu yiraahdo saas waa khiyaanadaasna lama ogola midda saddexaad waxa weeye haddii uu niyeysan yahay inuu gabadhaas iska xalaalaysto laakiin meherkaas aanu bixin qiyaamana uu yimaado isagoo aan bixin xadiista qaarkeed waxay sheegaysaa inuu isagoo zaaniya uu imanayo yawm alqiyaama isagoo zaaniya ilaahay la kulmay
marka gabdhahana waxaa la farayaa iyo ehelkooda meherka inay fududeeyaan saasay axaadiistu tilmaamaysaa oo dumarka waxaa ugu barako badan tan taklifadeeda iyo kulfadeedu ay ugu fududahay gabdhihii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaasaskiisana saasaa lagu guursaday oo dadkii ugu fadli badnaa marka waxba meherbadidu ma keenayso dadka qaarkii baa waxay ictiqaadsan yihiin meherkaa lagu cuslayaa oo hadhow ku furi maayo oo lacagtaanu hadhow maaragtay culayskeedu ka baqaya waa nimankan soomaaliyeed waaba ninka leh maaragtay iskaga meheri waxba maaragtay makaasaa meher xiraya haddaan ilaahay cabsidiisu xirin ma xirayso meher ma celinayo 10 kun 20 kun 30 kun baa tiri ma celinayso marka meherkana gabdhuhu ha fududeeyaan ragguna meherka ha bixiyaan gabdhaha waxooda xuquuqdooda ha siiyaan waajibku sidaas wallahu aclam jawaabaha marka waa ku adkeynaya inay soo gaabiyaan saddex su-aal baan isu raacinaya sheekh cabdirashiid cali suuf su-aasha koowaad waxay leedahay dad waxaa jira waa iska baraarujin salaanta iska qaadin bal dadkaa kelmad u sheeg su-aasha kale ee aada usoo laalaabatay dariiqa ugu sahlan ee qur-aan lagu barto su-aasha saddexaad waxay tahay qofka markuu salaada subax u tukado ilaa shuruuqa inuu fadhiyo fadliga ku jiro saddexdaa su-aal baaraka allah fiik waan la soconnaa baan u malaynayaa kulligeen axaadiidta ka soo waariday nebigeenna sala allahu calayh wasalam rabbigeenna inuu ra'uufu raxiim yahay dembi dhaaf badan yahay mu'min kaste iyo mu'minaad kaste yowma alkhamiis waa yowma alithnain in camalkooda la cardinayo ilaahayna yakfir likulli mu'minin wa mu'mina mu'min kaste iyo mu'minaad kaste uu dembi dhaafayo ilaa axada baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa axad isaga iyo walaalkii shaxnaa iyo ma garanaysaa ay ka dhexayso wax calool isugu hayo oo kala xun kuwa waxaa la odhanayaa maadaama ay qalbiga wax isugu hayaan iyaga dib u dhiga arrintooda dib ha loo dhigo marka camal kastood qof ilaahay agtiisa wax ka rajaynaya haddii aad tahay camal kastood saalix oo wanaagsan ood la timaado hadduu maxjuub noqonayo aan laga aqbalaynba bisababi adiga iyo walaalkaa dhibka idinka dhexeeya ama adiga iyo walaashaa dhibka idinka dhexeeya khilaafka ah iyo shaydaanka kuu soo marinaya cizatu nafsi yacni waa meesha uu nabigeenu nagula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan shaydaanku wuxuu ka odhanaya haddaad cafis adigu xaggaaga kala timaado qofka iska cafiso si kastoo isagoo kuu dhibo hadduu ku gooyo adigu inaad waxaa dullinimoyu ku leeyahay laa dullinimo ma aha waa cizi iyo sharaf baad ilahay agtiisa ka helaysaa sidaas darteed adduunka maadaama la joogo min maalintii nebi aadam ilmihiisu ay isdagaaleen ilaa yowmina haada bal aabbaheen iyo hoodeen aadam iyo xawaa ilaahay markuu soo dejinayey bacdukum libacdin caduw buu ku soo dejiyey marka in la kala gardarnaanayo waa arrin iska cad oo waa dhibaata waa dhacaysaa waa la kala gardarnaanayaa cafwi iyo musaamaxaa la doonayaa labada qof walaalaha ah rijaalan ha ahaadaan ama nisaa ha ahaadaan dhexdooda shaxnaa iyo calool isku qabad ay qalbigooda dhexdooda ku jiro waa in ay iscafiyaan si camalkooda ilaahay u aqbalo waa inaad walaashaa cafido weeye waa walaalka ayi shaksi oo adiga iyo isaga dhexdiina ay dhibaata ka dhexayso si ilaahay subxaana wa tacaala adigana kuu cafiyo waxaan u malaynayaa dee sheekhu waana la dardaarmayaa lagu sii dheeraanin baa layidhi yacni gafkii ugu weynaa ee adduunka ku dhacay qof muslimada oo mu'minada waxay ahayd kii soo gaaray umuna caaisha radia allahu canha oo zawjatu nabiy ahayd sala allahu calayh wasalam oo cafiifada ahayd oo ilaahay ku tilmaamay kaafila waxyaalahan xumaatada iyo zinada iyo waaba kaafil ma qalbigeedaba kuma soo dhicin markaasay qola ay afkooda ka dhaheen zinay ku dhacday walciyaadu billah dadkii hadalkaa qaarkood uu afkooda soo maray baa waxaa ka mid ah nin mistax la ohan jiray oo abubakr sidiiq oo caaisha aabbaheed ahaana ay habro wadaag ahaayeen faqiirna ahaa miskiinna ahaa abubakar uu maaragtay uu quudin jiray dabadeed arrintii markii ilaahay uu umana caaisha beri yeelay oo kitaabkii ilaahay kusoo dejiyey oo yidhi waxaa wax weyn weeye haadaa buhtaanun cadiimun oo aayadahaas dhaadheero suuratu nuur ayuu abubakar intuu cadhooday wuxuu ku dhaartay inuusan dib dambe una xiriirinaynin waxna nafaqaynin waxna siinaynin ilaahay baa si khaasa ula hadlay aayad baa soo degtay walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati
يسندارن أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا إسكعفيا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ماذا جعل إلى تاسع مركا هلكا كوتا ألا تحب ذات رقف كان دبكاسو يجيستيو ولا يعفن مايو دبكا كوين أردها سمحيتها يكون على أمنا عائشة أبهد لقوي إسكعفي ولا يعفو ولا ألا تحب سيدنا أبو بكر وحير بلا أحب أن يغفر الله لي بلا أحب أن يغفر الله لي تاسع كاسان كجبحيا طلبات قرآنك إن بدن باسو أشياء لويديا قرآنك أسهل طريق وسهلا الله نوض سيو ولا نوض حفظ سيو قلبي أنك سوقه وتكرار يكوع العلم وي مركا القرآن كحفظنا يشكوع العلم تيشا كوسو جيشا مركا لما يشكوع العلم تيشا كوسو جيشا آخرين تيشا فربنا وهدردار النبي نودر دامي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها كوع العلين قرآنك سواء مركات حفظنا يشو إيا مركات لما يشو ما أنتي لما يشو ما قرآن كنا بعد لما يشي وردي أديالتود هذه قرآن أخرده أي قرآن كوكو سجنانا يا أسهل طريقة مركها وحين نقول إيشا إن وقت في عنسيسو وقتيها مسكح ذا أي ماركت فراقتها وحيالها لغو مشغولة يو مقررت آلات كان يو تلفونات كان يو حناد مالش كدكتو تاسها إلهي كوكو فضوذين وحنا رجينا إن شاء الله كل جين أهل القرآن تين وأهل الحفظ أتين أرنتك كلا كسابسا إن بعد صلاة الفجر اللي فريستو إلى الإشراق والله برك على تكذو أحاديث صحيحة النبي كي من أحاديث بكتمد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إن أرنتها سي أردقانتو أجر حج يا عمره أو وليبا تام وصدح قول نبي كعلي صلى الله عليه وسلم ووقت فضيله إلهي أدو جعلها إلا حسو ووقت قفك مؤمن كأ يا مؤمنة دا هديبا إلهي وسهل يوسن وح وقام مشغولية أي سنجرين إنه اسكضيع أي آدي أدو فالحنتهي إنه فريستو بعد صلاة الفجر إلا قرحضو أي صوبحضو أي ديراته يعني وحلقو قياسا 8 دقيقة أما شني 8 دقيقة قرح كصوبح كدب إنه مركا الله بركة أو تكذو إلهي هلكا وحقوق سينيا أجري حج إيا عمره أو تام ديارة والراعن تقلنا أقوسا آند آدين أجر كذا إلهي كسينيا ما هو حج كيبات قدتي لكن أجر كذا إلهي كسينيا ما هلين كستان إلهي وكسينيا إلهي دغدي سنة مرة ما نيسوا واسع وهي والله تعالى أعلم جزاكم لكن وحير كذا بتقي دكتور الرأي الله يقاوم يعني إلا فريشته بعد صلاة الفجر وإن إلهي لا حسو ما هو فريستو فيسبوك أن فرتي يوم قرنا يسا سناب شات يعلم تسمعها وفريسنا يسا بعد صلاة الفجر إلهي ما حسو يسا ذكر إلهي أما قرآن بعد آخرين يسا علماء القار كتب حيلا حتى هدي درسي أوجرو لا بأس يا يا قرقاقا يعني شرط ما حتى مسجد قرقاقا ما شهد كنت كتب هذا فريسا جويريا النبي صلى الله عليه وسلم وحكتك يدو فردا بعد صلاة الفجر أو لفتمر كتر سنة يسا سيدا درتي تصبح لو ترسدو وهاك سنتاي وفي عنتاي دad saaxibu dhikr tahay oo tusbax qaadatood ku dhikrisid waa arrin wanaagsan way sameeyeen umana juwayriya way sameeyay oo timir bay ku tirsanaysay nabigu markuu ku soo noqday goor ay barqa tahay ayuu wuxuu ku yiri laqad qultu ba'daki 4 kalimat 4 kalimat ili law wuzinat bima qulti منذ اليوم لوزنتهن انتي maanta oo dhan akhriinaysay 4 kalimadood baa ka khayr badan maaha macnaheeda shaqadii aad haysay baa xun abaal gudbu u siinaya كلماتك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كرك وكالله يا سمع هذا الأخير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كواسا لقو مشغولة يا محان أريتها كوذا أنا قبلها ما أركن لكن ويلا له حضر كيسا مسايدك جوغو صلاة صبح مركي تكذان أنا بتان الله صباحي تليفونك أو ما تورنا بهالك كل رجوعي تاس وحن لين يا أجري حجي عمره مهلاي والله تعالى أعلم. surrogate mother سوي دي معناه ده واحد تها إن جبر وحنتي يطلق قادم هويني لقوا بيراميد كله أما با استئجار رحم التلقيح الصناعي قف كله رحم كيس أما هويني كله رحم كذا مركا إلا كريس مجامع الفقهية وحرام ما بنانا شرعا مسألة أيضا سؤال شكل واحد لا ده موديلينك العجها اللي وقعته
مودني waxaa jira islaamiga hadda ka ku qaada insha Allah ka kalena iska daa طبعا halkan waxaan ku soo gabagabeynaa dhowr su'aalo laakiin mukarrar jiro aan saa u badnayn waan soo macnaha su'aal waxay la xiriirtaa ma laga muxaadarayn karaa meelaha dadka markay dhintaan oo kale qubuurta iyo janaasooyinka waxba kuma jabna way salafku ay sameyn jireen dadka lagu wacdiyaa aroosyada ma laga muxaadarayn karaa qofka inuu dakheer meesha ka sheego ummadda waani waxba kuma jabna gabagabadii waxaan dhihi lahayd dhowr su'aalo waxaa yaal la xiriira in dadka loo duceeyo dadna way soo sheegteen dadna way qarsanayaan laakiin inagoo dhan isku duruuf baan nahay biidilaahi subxaanahu wa tacaala dad baa xanuunsan dad baa muruga ay haysaa dad baa ciyaal ka dayacan yihiin dad baa waalid u murugaysan oo dhintay ama dad hadda xanuun intaba sheekh baaraka allah fiik arrintaa hadda sheekhu ka hadlay waa arrin muhiima jiddan ku dadaala waxaan kaloo aan dardaarankaan idinku dardaarmayaa xanuunyo badan bay ka sheegtaan gabdhuhu daa'iman حتى قبل ملتزمة ده محجبة ده ما ركتيش وحان إسو دردار مينا ذكر إلهي قفك ذكر إلهي دائما أذكار الصباح والمساء وردي كدكتا هذه يقول عرب كيس ذكر إلهي كوهيا مالو شيطان يجني عفريت يو بخت أصو مران هلمايا محايا حسنك يو مغانت إلهي بكجرا وحشو هجومي كرانا مجرى بإذن الله marka dikriga iyo wardiga qofkii dhibaata ay soo gaadhay wax dareensan waxaan la iska sheeganaya dareensanna ilaahay cilaaj buu ku siiyey cilaajkaasi waa maxay ducada waa wada ducaynaynaa adiguna ducayso quraanka wax ka weyn ma jiro suuratul baqara dad badan baanu aragnay oo iska dhibaataysan oo waxyaalahan oo maaragtay cudurradan aan khaatiirtu shaqada ku lahayn ay ku dhaceen سورة البقرة إلهي كداوي سورة البقرة دائما إيشها مالك استاذ أخري إيشها وقت بدن كاقادا ميشو مدة هداد ودو إلهي سبحانه وتعالى لبكي كسو قاري إلهي وكعافنيا حرزي يا أمان ويكون نقون إيشها مركا وحاني دين دردار ميا ذكر إلهي نظهر هذه يقول عربك أتكو هيشان دينت إلهي أدود داشان قريه ذكر إلهي لوحسو أتكدكتان إلهي هنا بركة كل جين اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحيي قلوبنا بنور معرفتك ومحبتك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مكروبا إلا نفست كربته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أصلح لنا في ذرياتنا اللهم أصلح لنا في ذرياتنا اللهم أصلح لنا في ذرياتنا واهدهم إليك ووفقهم لما تحب وترضاه يا رب العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين دعاء الله نجا أقبله أنت ولا له دعاء خاص كأسوي ديستي إلهي وحب الله فسير ما يلو شيء ما يسجان أو جان بدن أنتاس إلهي مراد كذا الله سيو وفكي بكينا الله عافيه أنت كلا عن نسوق قرين قفولي بحاج لي إنسانكو وهذا حاجة سوق دم بوا حاجة إلى حاجات كيس إلههم باقولي كرا قفل بو إنك إذا قلبي يسوي حكو جرا أو مراده إلهي نرالك يا الله قارسيو الله سيو وفكي ما قرنا إساس هذا ولا شيء لنوش هاي وبدك كداهن إلهي وبد صالح الله سيو تي جورك كداه جور ونكسن الله سيو هي وبد لا إلهي وبد كذا الله وهجاجيو المها أسمارك تعذر كان أن هذا الكان الله إنه حلنا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إلهي بوحك استكرنا واجيه خير الله كجنا واجيه إلهي هذا الخير الله أفره اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إلهي وحك برينا والدين تاني وحيد أنت الله نحرسته أنت نول الله حفظيه عرورتنا الله نو إلاليو عرورتنا أبد كان الله نو إلاليو دينتي يا قرآنك يا ذكري إله الله جعل يسيو حجابك قبلها الله جعل يسيو الله جعل يسيو عظمة وينانت إلهي قلبك أن الله كل بعيو آخر وينانت إذا قلبك أن الله قليو آخر وينانت إذا قلبك أن الله قليو أدو يزهدك إذا قلبك أن الله كأبور إنه ولي ذلك والقادر عليه إلهي وحن كبرينا دعاء إنه نقا أجيبه
wixii aan ilownay khayrana ilaahay baa garanaya allahna wada siiyo intaan ilaahay weydiisanay wax ka weyn oo xaggiisa ka imanaya allahna wada siiyo waxa ugu weyn waa ridaha ilaahay allah naga raali noqdo dembigeennana allah dhaafo sida halkan ilaahay noogu kulmiyeyna jannadii allah noogu kulmiyo jannadii annaga iyo waalidiinteena iyo ahalkeena iyo qaraabadeen muslimiinta oo dhan jannada allah noogu kulmiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxaabatihi ajmaciin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الأمين ونحن على ما قاله ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن اللهم اجعل حسن تلاوته على ألسنتنا واجعل فقهه وفهمه في أفئدتنا واجعل العمل به على جوارحنا صلى الله على سيدنا محمد